طبعا وتعاون على البر ودماننا لو كغا باهان yahay dhamaanteen inaan caawino ardada agoomanka inaan caawino oo nin walba wuxuu gali karo iyo wuxuu gudi karo uu gudo sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay fadli badan iyo ajir badan ayaa ku sugan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay xataa qofka agoon kafaala qaada inuu manzilka rasuulka sallallahu alayhi wasallam rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiidkaas ana wakafilul yatiimi ka haatayni fil janna labadan farood oo fartan iyo wuxuu tilmaamay tan dhaxe markaasuu sidan isugu qabtay wuxuu ku yiri aniga iyo ninka kafaala qaada agoonka waxaan nahnay labadaas farood ayaan jannada ku nahnay rasuulka manzilka jannada uu ku leeyahay ayuu sidaas ugu dhow yahay ayuu sidaas ugu dhow yahay qofkii kafaala qaada marka Abdullah Guure jazaahullahu khayral jazaa iyo inta kala shaqeysay iyo inta kale ee caawisa agoonta caawisa maxaa yeelay agoonta aaba kala ma laha aaba kala uma joogo oo anaga aan ahayn lidaalika waxaan kaga baahan yahay sida caruurtayna anugu dimqahayno oo aan waxbarashadooda iyo cuntadooda iyo libaaskooda aan ugu dadaalayno inaan ugu dadaalno oo ayna dhicin inaad adigu kaliya tiraahdo guriga waa ku filnaaday agoonta deriska ama aqaaribta ahna aad iska dhaaftid arintaas arin sax ma aha waxa loo baahan yahay marka arintaas in la iska garabsado waxaan dhihi lahaa waalidiintana ama dadkayna kale ee martida ay joogta ay kamid yihiin macallimiintu xataa ay kamid yihiin iyagu doorkooda way qaateen inaan doorkayna aan qaadano والله سبحانه وتعالى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إلهي سبحانه وتعالى وحو عاونا وكالمينا أدونك انت الله سبحانه وتعالى انت أدون إلهي وكالمينا مرك إلهي سيئو نوو كالمينا وقرب كينا ونغضو إننا عاونو أرضنا وحان ليه هاي وحان كبورنا إن كفا إذيستان فرصدا نيضا اللي سيئي والمستقيم أيوه الرئيسو أي سيسي المستقيم داد هانتليالا maaha dad hay'ada maaha waa dad sida anaga oo kala ah oo waliba howlahoodii iyo waqtigoodii u daayay in ay caawiyaan ardada agoonta ah jazaakumullahu khayral jazaa aad u mahadsantiin ilaahay idin jaaziyo anagana sidaas oo kale ku dayashay laakiin ardadu waa inay fursadaas ka faa'iideystaan waa fursad qaaliya oo aan la heli karin arday waxaad arkaysaa waalidkiisa oo la daba taagan yahay waxbaro wax walba kugu baxay ana bixinaya ee laga kari laayahay maxaa u malaynaa marka nin aan waalid ku ahayn oo waxbarashada bixinaya hadduu waxbarashada ka bixiyo adigina aad saaqido oo aad waxbaro weyso ma ku faraxsan yahay may kuma faraxsana المستقيم فاونديشن waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa